intii koobaad si toos ah uga bilaabay ololihiisa degmada Xudun xisbi xaafidka Kulmiye banaanka mida taageerayaasha xisbiga Kulmiye ayaa socod dheer waxay ku soo mareen wadooyinka dhaadheer ee degmada Xudun iyagoo ugu dambeyntiina isugu soo biyo shubtay xarunta degmada Xudun si khudbada uga soo jeediyay gudoomiyaha degmada Xudun gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee degmada Xudun iyo gudoomiyaha gudida kaambeynka ee degmada Xudun waxaana ugu horeyntiiba hadalka qaatay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye waxaana uu yiri waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha xafladda nagala soo qayb galay ee xisbiga Kulmiye waxa weeye dalkiyo iyo dadkuba de waxa weeye waa Kulmiye waxa weeye xisbigu in badan soo shaqaynayay haddii uu soo shaqaynayay waxa weeye waxtarkiisi waanu aragnay Kulmiye mid guud iyo mid gaar ahaaneed oo waxbaanu macnaha dee aanu wada galnay
ilaahay saasaynu ka dareema waxaa igu soo kici jiray maalin kasta taleefa laweeyaan xudun waa mucaarad xudun howlgalka degmeynu xudun mucaaradkay noqotay maanta waxaan tusayaa muusabixii xukuumadda xudun inay kulmiye iyo xukuumadda tahay waajibaadkiisa anaana ay ka soo baxday hogaanka xisbiga waxay xudun mutay mutaaxa u leedahay marka buumaroon taasaa horta igu fariintana baa waxa weeye umaadayda waxa weeye qofka waa inuu waxaya maxamed kaarshe cabdilaahi yasad DV-ga qaranka Somaliland xudun